Sweet coin teeda kale qof biyo kugu siinaysa ma jirto, qof raashin kugu siinaysa ma jirto, qof lacag kugu siinaysa ma jirto. barnaamijkan waa barnaamij been abuur ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Ibn Abubakar. maanta waxaan ka hadli rabnaa barnaamijka la yiraahdo Sweet coin. horta dadka magaciisa si fiican uguma dhawaaqaan, waxay ku leeyihiin Sweet coin lacagtii macaana laga wadaa markee. horta barnaamijkan waxaa soo saaray dalka, waxaa laga leeyahay dalka Ingiriiska, waxaana la soo saaray sanadka markuu ahaa 2015. Soomaaliland wuxuu soo gaaray 2020ka. sababtoo ah xilli 15 uu soo baxay, maxaa Soomaali loogu keeni waayay 2015? ma isweydiisay adigu? waa maya, meesh wax baa ku duugan. horta barnaamijkan waxaa la dhahay lacaga laga sameynayaa soco oo kali lacag sameyso. barnaamijkan qof horta adis ma isweydiisay barnaamij lacag ma dhiganayo kaliya waa iska soconayaa, lacag ma sameynayaa? ma isweydiisay hadal soconaya miya? waa maya. beriyo waxaa la xiisan jiray shirkadda la yiraahdo Forex waa naqaanaa, lacag waa la dhigin jiray, lacagna waa la dul saari jiray. laakiin kan wuu ka duwan yahay, sababtoo ah kaas lacag waa dhigin jirtay, wax waa rajeynaysaa lacagta inay lacag ku sii kordhayso, sax? laakiin barnaamijkani lacagna ma saaranayo, waa iska soconaya oo kaliya, lacagna waa ka samaysan karaa. ma isweydiisay adigu? maya, arrintaas arrin soconaysa ma ahan. barnaamijkan kaliya waxay u soo saareen in aad marka aad soo degsinaysid ambiga inay ku xisaabtamaan, oo ambiga ka baxayo adiga ka baxayo, ambigaas waxay rabaan inay u aruuro ay lacag ka sameeyaan ambigaas. laakiin ma ahan barnaamijkana lacag laga sameynaa saana la yeelaa inta ka baxay, ma jirto. sanadka hore waxaan arkayay 17 inay ahayd oo maleena 18 dhaxdaas barnaamij jiro oo noocan amal ah. barnaamijkaas kaliya waxaa lagu dhahayaa video daawo lacag ka sameyso. okay, video daawo lacag ka sameyso. marka video daawatid lacagta ay ka sameysid, lacagta see u baxsan kartaa? waa su'aashaas ma isweydiisay? waa maya. lacagta waa sameysatay, waxaana lagu leeyahay xujja kale, waxaa lagu leeyahay 30 qof ina waa laazim 30 qof ku share gareynay. 30 marka ku share gareysid 30 kaas ilaa ay ka sameystaan lacagna ma sameysan kartid, lacagna ma baxsan kartid. okay, waxaa la yiri 2015 la soo saaray, dalka Ingiriiska laga soo saaray. Soomaaliland wuxuu imaaday 2022. lacagtu waa ka sameysatay. qof ma jiro oo lacag uu ka sameeyo oo ka soo baxsaday aan lagu sheegin. lacagtaana loo soo baxsanaa, Bible laga soo baxsanaa, ID hebel hadaa haystid lacag waa soo baxsan kartaa. shirkadda waxay dhahday bishan oo 9keeda waxaa la dhahay lacagta xilligaas oo macnaa la soo saaraa, lacagta xilligaas la soo bixinaa. haday run qabi lahaayeen 2015 application-ka uu soo baxay, tusaale ahaan 15 uu soo baxay ma la diidano. 15 ilaa 16 xayeysiin uu sameey karaan, 16 lacag way ka dhigi karaan. laakiin ma isweydiisay 15 16 17 18 19 20 21 waa 7 sano. 7 sano Soomaali ma imaanin, 22 ku imaad hadde. waa xayeysiin lagu sameynayo Soomaaliland waxay jecel yihiin iska soo lacag sameyso. wax walba ana xitaa ma shaqeysan lahayn, waa iska jiifan lahaa. subaxii waa iska jiifana ilaa 6 saac kadib waa shaqeysanaa. xilligaas 6 saac kadib waa iska soconaa, mobilka jaabka iska gashanaa, 6 saac kadib waa iska soconaa. xilligaas iska socon lahaa, lacagta waa sameysan kariye. dadna waxay isticmaalaan 1xbit. 1xbit lacag waa saaran kartaa, lacagna maxaa lahaay mar waa ku khasaari kartaa, marna waa ku faa'iidi kartaa. laakiin application-kani lacagna ma saarayo, waa iska soconaa, lacaga qaadanayo. haweenka xali tago way saaxiib, ma fahanday? yani idinka waalin Soomaaliyay fadhiga ka kac. barnaamijkan waxaa loogu talagalay dadka cayilan, dadka burburan inay socdaan. dadka burburan kuwa qaar hadaa dhahdid saaxiib jiim ma iska gashid, saaxiib ma awoodina jiim aan gala, saaxiib ma ribi. laakiin saaxiib lacag ku siinaa, waxaa sameeya hadii la yiraahdo mo ninkan soo bax uu ku leeyahay, ma fahanday? taasna waa iga kaftan. waa run, waana dhab. waayo qof waxaa sameey hadaa dhahayd ma sameyn kari. laakiin hadaa dhahayd saaxiib miyaha waxaas lacag kugu siinaa, sameey. barnaamijkani dalka Ingiriiska waxay u soo saareen dadka cayilan inay waxa waaye si isku caateeyaan camal ay u soo saareen, ay socodkooda iyo wixii caalamiinta ay u tahay. laakiin maanta waqtiga shaqadaada waa laga lumiyay, ambiga waa ka khasaaray, dad badan ka waashay. dad waxay leeyihiin gacanta saan la yeelaa, kula saan la yeelaa. qof lacag ku siinaynin oo xaq iska joogo oo lacag saaranaynin oo lacag oo si bilaash lacag kugu siinaa ma kula tahay adi? may
Soomaaliya runta idin sheega ani mar walba social media application uu qabsanaa sax 19 application uu haystay 17 application uu haystay application ma ahan copy link ii taabta lacag laga sameeyna $100 laga sameeyna uu socday 22 waxa la soo saaray isla 22 oo maleena barnaamijkaas oo copy link uu socday copy link noo taabo calaamad message noo taabo lacag sameeysanay waa lagu waayay dad badan lagu beeniyay application kan waa sidaas oo kale dadku waxay ku raadinayaan views oo kaliya Soomaaliya run hada rabtiin maxaa lahaye application jira ma ahan barnaamijkaas waxaa la yiri Sweetcoin macnaa dhidid lacag ka sameeyso iska soco aad iyo aad mahadsantiin sida quruxda badan ay daawateen teeda kale qof biyo ku siinaysa ma jirto qof raashin ku siinaysa ma jirto qof lacag ku siinaysa ma jirto barnaamijkan waa barnaamij been abuur ah hal iska ilaaliyo saaxiib waaweyn oo odayaal iska soo fariistaan waxay leeyihiin barnaamijkaas soo baxay ma aragtay barnaamijkaas asaas ah ma aragtay lacag laga sameeyay barnaamijkaas saas uu yahay ma aragtay odayaashan waxaan u sheegayaa ayadoon dib u arkeenin inay waqtigooda laga luminin waqtigooda ay ka faa'iideystaan waana mahadsantiin sida quruxda badan aad ii daawateen waa inoo kulan dambe oo xiiso badan wassalaamu calaykum